bismillaahi raxmaani raxiim. kusoo dhawaada Dambar Academy. waxaa inoo socday cashiro taxane ah oo aan ku baranaynay HTML. cashirkan waxaan ku baran doonaa HTML form ayaan ku baran doonaa. form marka la joogo HTML wuxuu ka mid yahay elementiska ugu isticmaalka badan, waxaana loo adeegsadaa marka userka uu soo xareynayo data uu soo gelinayo ayaa loogu talagalay. form aad ayuu u dheer yahay, waxaan u kala qaadaynaa dhowr cashir. formka waxa gudihiisa ku jiro waxaa loo yaqaanaa form elements ayaa loo yaqaanaa. cashirkan anaga waxaan ka baran doonaa wax loo yaqaano elementiska ay ka mid yihiin label, waxaan kaloo ka baran doonaa input, iyo waxaan hore usoo baranay aan xoojin doonaa wax loo yaqaano input attribute ayaan baran doonaa. okay, waxaan dhehaynaa input attribute iyo waxaan dhehaynaa input control. okay, saddexdan element ayaan cashirkan ku baran doonaa. si aan exercise u sameyno waxaa u baahannahay inaan save garayno filekan. waxaan dhehaynaa save, waxaan dhihi doonaa file, kadibna save as. waxaa ku save garayneynaa locationka aan u baahnayn. waxaan dhehaynaa form.html. okay, waxaa u baahannahay inaan furno tag form, kadibna waxaa dhehaynaa halkan naga soo xir formka. waxaa gelin doonaa halkan, waxaan abuureynaa input, kadibna inputka waxaa u sameyneynaa type. type waa attribute, waxaa dhehaynaa markaan text. input type waa attribute name, textina waa attribute value. intaan waxay noo suuro gelinaysaa in ay noo abuurto one input oo userkeeni kasoo xareyn karo information uu kasoo xareyn karo. okay, waxaa rabnaa marka in isla garano label muxuu noo qabanaa. hadda cid qiyaasi karta ma lahan inputkan xogta la rabo in lagu soo xareeyo. magac miya, telephone miya, address miya, lama yaqaano. marka waxaa tegaynaa inputkeena korkiisa, waxaa dhehaynaa label, kadibna waxaa dhihi doonaa full name. label wuxuu u taagan yahay waa hagitaan qofka userka lagu hagi doono fildigan waxa lagu soo xareyn lahaa, wax kale ma soo kordhiyo. waxaa loogu talagalay userka in lagu hago ee la dhaho fildigan waa inaad soo gelisaa informationkaas. okay, waxaa abuureynaa haddana another input kale. markaan waxaan dhehaynaa label, kadibna waxaan dhehaynaa customer tell. labelka naga soo xir. okay, kan spacekan naga yaray. okay, waxaa dhehaynaa markaan haddana waxaa abuureynaa new input, kadibna waxaa dhehaynaa type. markaan inputkeena typekiisa waxaa ka dhignay number. typekaaga marka uu number yahay keliya waxaa lasoo xareyn karaa number oo qoraal. waxaa dhehaynaa typeka number, lama soo xareyn karo qoraal, keliya waxaa lasoo xareyn karaa number. sidoo kale halkaas waa ka wadi kartaa, waana ka dhimi kartaa. okay, waxaa isla aragnay two input oo typekooda uu kala yahay text iyo number. markaan waxaa abuureynaa haddana another input kale oo saddexaad. waxaa dhehaynaa customer address. input addresska wuxuu noqonaa qoraal soomaa, waxaa dhehaynaa text. halkan waxaan ku arkaynaa haddana another fildi kale oo aan ku qoranay customer address. okay, mar saddexaad waxaa u baahannahay inaan dhahno label, tusaale ahaan gender. genderka sida caadiga ah waxaa lasoo geliyaa soo maahan qoraal lasoo gelin doona ma noqonaye, wuxuu noqon doonaa selection two items, male or female. waxaa dhehaynaa input type, waxaa isticmaali doonaa wax loo yaqaano radio. banaanka inputka aan imaanaynaa waxaan ku qoraynaa qiimaha qofka uu soo dooran lahaa. sidaa aragnaba gender male. marka mar walba aan rabno male iyo female inaan kala doorano waa inaan diyaarinaa laba input, typekooda uu yahay radio. midkan waxaan dhehaynaa female, kadibna refresh waa male iyo female.
hadda hal caqabadaa jirto qofka labadooda wuu isla dooran karaa saxna maahan sida caadiga hal xaba in la doorto ayaa sax ah si taas ay u dhacdo inbutyadeeni waxaa qasaba inaan ku darno attribute loo yaqaano name tani waxay ka caawinaysaa labadooda waxaa ka dhigi doonaa isku magac tusaale ahaan waxaan dhahaynaa gender kana imaanaynaa waxaa dhihi doonaa asigana name gender marka aan same name ka dhigno waxay ka caawinaysaa labadan midkood in la isticmaalo labadan midkood inaan isticmaalno haddii kan aad doorano markaa kan aadna kii hore jeega waa laga soo qaadi doonaa okay kan zoomkiisa ii ahaado intaa waxaan rabay inaan dhaho okay waxaa u baahannahay markaan haddana koraa u laabanaynaa inbutyada intaan ayaan uga gudbaynaa cashirka kale ku dhamaystiri doonaa waxaa ku xoojinaynaa halkan wax loo yaqaano attribute wax loo yaqaano tusaale ahaan halkaas inaan kusoo qoro qoraal oo hagitaan oo tilmaam ah ayaan u baahanahay waxaa imaanaynaa inputkeena koowaad space ayaan dhahaynaa one attribute ayaan qornay attributeka kale aan u baahanahay waxaa dhahaynaa place holder placeholder value waxaa loogu talagalay qofka in lagu hago waxaan dhahaynaa enter full name oo kale haddaad refresh dhahno halkaas waxaa kasoo muuqan doono qoraal yar oo khafiif ah qofka markuu wax qorana qoraalkaas uu bixi doonaa placeholder waxaa loogu talagalay qofka in lagu hago ee tilmaam lagu siiyo haddana mar kale waxaa imaaneynaa inputka oo numberka ah waxaa dhahaynaa placeholder enter waxaa dhahaynaa phone number oo kale automatic waa soo keli doonaa midka adresska ayaan imaaneynaa waxaa dhahaynaa placeholder enter address kuwaan ayaga ma lahan wax loo yaqaano placeholder ma lahan formkeeni waxaa ka dhiman qeybta hoose ayaan tegaynaa qofka markuu waxaan buuxbuuxiyo waxaa laga rabaa badhan uu dhaho safe uu dhaho ayaa loo baahan yahay hoosaa imaaneynaa waxaa abuureynaa one input sorry sidaan kama rabo inuu inoqdo waxaa dhahaynaa one input typeka markaan oo badhanka waxaa dhihi doontaa submit data in la submit gareeyo attribute waxaa isticmaaleynaa value waxaa ku qoranaynaa waxa aan rabno safe ama add ama diiwaangeli waxa aan rabno ayaan dhihi karnaa qofka markuu safe dhaho waxaa la rabaa daatadii in la submit gareeyo ee la qaado kor ayaan u laabanaynaa mar walba ee aa u baahan tahay formkaaga xogta lasoo geliyey in la submit gareeyo ee database loo diro annaga database maanan gaarin laakiin concepti ahaan waa inaan fahanaa formkaaga wuxuu u baahan yahay markaas laba attribute attributeka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa form action waxaa loo isticmaalaa markii xogtan lasoo bubuuxiyo inta aad dhahno cali numberkaas wuxuu degan yahay madiina waa mail marka aad safe dhahno ama submit aad dhahno actionkan meesha uu ku qoran ayaa la aadi doonaa tusaale ahaan another page kale ayaa la aadi doonaa daatadan waa la qaadi doonaa pagekaas wuxuu u dhigmaa hadhow technologyga back endiga a isticmaaleysa incase haddii uu yahay php waa pageka daatada lasoo geliyey formkaaga xareyn lahaa actionka marka waxaa lagu sheegaa pageka daatada xareyn doono tusaalahan waxaa la dhihi doonaa safe.php ama safe.jsp wixii la rabo aa la dhihi doonaa annaga hadda ma haysano waxaa jira oo muhiim ah wax loo yaqaano method attribute waxaa loo isticmaalaa waxaa lagu qeexaa the way ee daatadaada loo qaadi doono laba type ayaa ugu caansan wax loo yaqaano post iyo wax loo yaqaano get marka aa isticmaalna get informationka inta aa soo gelinay halkaas ayaa laga arki doonaa tusaale ahaan waxaa la dhihi doonaa qiimahaas equal marka aa isticmaalno posti daatada halkaas lama marsii doonee waa la encrypt garay doonaa oo security ahaan waa la qarin doonaa okay marka aan form qiimaha ku jiro aan rabna inaan xareyno posti iyo get waxa aan rabna aan kasoo dhiganay waxaa qasab ah every input walbo inuu yeesho attribute loo yaqaano name every technology walbo ee back end la isticmaalayo
daatada formkaaga lasoo geliyey inputyada marka uu ka qaadanayo informationka wuxuu ka qaadan doonaa inputka magaciisa. waxaa qasab ah every input walba inuu yeesho magac unique ah aan soo la laabanaynin. tusaale ahaan kan markaa u bixiyo full name f name oo kale, haddii a kan u bixiyo mar kale f name, labadan input mid kamida ayaa la qaadi doonaa xogtiisa, kan kale informationkiisa lama qaadi doona. kanoo kale waxaa iska dhahaynaa telephone, kanoo kalena waxaa dhahaynaa address, genderka already wuu noo samaysnahay. marka si aan informationka u arko waxaan dhahaynaa formkeena get ayaa dhihi doonaa. okay, refresh, waxaa dhahaynaa tusaale ahaan cali, numberkaas, address wuxuu degan yahay Medina, mail, submit. inta si aa u aragtaan browserka ayaan weyneynayaa. halkaas sidaa ujeedna fiiri maxaa la dhahay f name waa magaca inputka u horeeyo, qiimaha ku jiro wuxuu kula mid yahay cali, anda telefoonka sidaas, adresska Medino, genderka maxaa lasoo geliyey fiiri on ayaa lasoo geliyey. sababtana maxaa waaye mar walba aa isticmaalno labadan input radio button aa isticmaalno waxaa nagala rabaa inaa isticmaalno attribute loo yaqaano value. marka uu qofka mail doorto waxaa dhahaynaa qiimaha aa qaadi doonto ha noqdo mail. intaa imaaneynaa value, waxaa dhahaynaa marka female lasoo doortana qiimaha la qaadi doono ha noqdo female. tusaale ahaan waxaa dhahaynaa cali, numberkiisa Medina ayuu degan yahay, mail, safe. pageka noo weynay hadda sidaa u aragnaba gender waxaa ku jira female. halkaas ayaan kusoo koobi doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullah iyo cashirka xiga.